السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي أنا كحيرن channel كينا ورسن ميديا ومركلة إيو ليابك الدنيا. ما أنتو حنكسو قادانينا dhaqamada iyo caadooyinka layaabka leh ee ka jira dunida. In la iska jaro faraha. Dalka Indonesia waxaa laga garanayaa caado layaab leh taasoo ah in faraha la iska jaro. Naagaha ayaa lagu qasbayaa inay iska jaraan faraha markii uu dhinto qof ka mid ah qoyska, taasoo loogu gun leeyahay in la dareemo dhimashada qofka. In la jijiyo wixii maacuun ah guriga yaalo waa caado laga isticmaalo meel ka mid ah Germany. qaar ka mid ah qaraabada iyo asxaabta ayaa imaanaya kadibna jijibinaya wixii maacuun guriga caruuska yaala, taasoo loogu gun leeyahay inay noqoto xasuus bilowga carooskooda. cabida mooska iyo lafaha qofka dhintay oo la isku shiiday waa caado ay leeyihiin dadka ku nool duurka u dhaxeeya Venezuela iyo Brazil. Markii qof uu geeriyoodo ayaa la siiyaa xasharaad si ay u soo reebaan lafaha. Markii ay ka soo wareegato 45 maalmood ayaa la soo qaadayaa lafaha meedka oo lagu shiidayaa mooska. Dadka hortooda ayaa lagu cabayaa, taasoo aaminsan yihiin in qofkaas uu dhintay jannada uu geli doono. In laga mamnuuco caruuska iyo caruusada inay isticmaalaan suuliga waa caado ay leeyihiin dadka Maleeshiyaanka, khaasatan gobolka Yelinyo ee waqooyiga Malaysia. caruuska iyo caruusada waa ka mamnuuc inay galaan suuliga muddo 3 maalin ka hor arooskooda, waxaana loo diyaariyaa dad ilaaliya kuwaasoo ka warqaba inay gelin suuliga. waxay aaminsan yihiin in caruuska iyo caruusada cimrigooda uu ku dheeraanayo. in caruuska uu xambaaro caruusada waa dhaqan laga yaqaano Shiinaha. caruuska ayaa lagu qasbayaa inuu xambaaro kadibna uu la dhex socdo jaay kulul, taasoo aaminsan yihiin inay noloshooda noqonayso mid guulaysata. inta badan waxaan maqalnaa cibaadooyinka cajiibka ah sida Hindiya meel ka mid ah oo laga caabudo looda. sidaas oo kale dalka Japan ayaa iyagana caabuda yeyda, ayagoo sheegeen inay yihiin ilaahyo. yeyda ayaa gowracaan kadibna dhiigeeda ayay cabaan si loogu barakeysto. xaflad weyn oo loo qabtay daanyeerada dalka Thailand. sanad kasta dalka Thailand waxaa lagu qabtaa xaflad aad u weyn oo si heer sare loo soo agaasimay, taas oo loo qabto daanyeerada. waxaana la keenaa wax ku dhow 3 tan oo qudaarta noocyadeeda kala duwan oo ay jecel yihiin daanyeerada, iyagoo aaminsan yihiin inay farxad u sameynayaan daanyeerada. la noolaanshaha meedyada Indonesia waxaa ka jira caadooyin iyo dhaqamo loo malaysan karin. gobolka Arti waxay leeyihiin dhaqan ah in qofka uu la noolaado meydka qaraabadiisa muddo bilooyin ah inta aan la aasin meydkiisa. helida barakada guurka. dalka Brazil waxaa ka jira caado ah in gabadha la guursanayo ay soo barakaysato ayna soo taabato qowraha xayawaanka, taas oo ay moodaan ilaahooda uu doorayo nin danaynayo. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena dhacdooyinka dunida ee maanta. intaan ku kulmeyno mid la mid ah waxaan iga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. haddii aad ku cusub tahay Warsan Media, ha ka iloobin subscribe iyo gambalaalka inaad taabato si aad u hesho muuqaalada xiga.